السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. waxaan idin rajeynayaa caafimaad iyo nabad meel qof walba meelaad ku nooshahay baa ilaahay waxaan idinka baryayaa maxaa nabad qab iyo caafimaad qab. marka maanta waxaan ka yara hadlayaa googooskii wixii yaraa intii yara googooskan ka hadli jiray. maxaa adduunka dee adduunku waa xaweeye adduunku alxamdulilah barwaaqada sooran baa lagu jiraa. يعني wax kastoo da yimaada ilaahay waa inaan ugu mahadnaqnaa, wanaag dhibaato wax kastoo yimaada ilaahay waa inaan ugu mahadnaqnaa. alxamdulilah wax kastoo yimaada dee adduunku iskuma dheelitirana dee waaba saasaba noloshuba tahayba. nolosha haddii dee nabad un la haysana waxbaa wuxuunba bilaadanku tabayaanoo dee torobalki bay tabayaanoo torobalki waa la bilaabaya dhibaatadii. marka ilaahay waa isugu keen maxaa dhahdaa ayay dheelitiray nolosha oo dhan. waxyaabaha cajiibka aanan ogeyne ilaahay nimcada ina siiyey ilaahay subxaana watacaala wanaagsana alxamdulilah rabbilcaalamiin. ilaahay ummadiisa siduu maxaa dhahdaye inoo badbaadiyey ummadiisa uu abuuray uunkan uu ku abuuray jini iyo insi iyo xayawaan wax kastaba yacni balance buu sameeyey. iminka adduunyada waxaa la yidhaha waa sagaalo waa tan kubadaan kooban la yidhaha waa sagaalo. inta kale de waxa ku nool ilaahun baa og, laakiin teenaynu ka hadlaynaa teena yacni nimcada ilaahayna siiyey aan bili-aadanku aanay ogeyn baa cajiiba. yacni dayaxa qoraxda dabaylaha badda qabowga kulaylka xanuunka caafimaadka maxaa dhahdaye fiqiirnimada taajirnimada caruur la-aanta caruurta la ilaahay qofka ugu deqo qofna aan ugu deeqin. yacni waxyaabahaas oo dhan waxaa ku jira cilmi cajiiba laakiin bilaadamku aanay ogeyn oo aanay si rabin inay ogaadaan. iminka dayaxoo keliya dayaxu intuu inoo jiro meel buu inoo soo taaganyay soo maha. dayaxa intaa uu inoo jiro hadduu ka fogaado badda inagu kacaysa, badda ayaa inagu soo kacaysa oo dunida dakumdaam ka dhigaysa. ilaah baa ugu talagalay meesha uu taagan yahay limidkaa uu soo joojiyey dayaxa ilaahay soo joojiyey iyo badda magneetka waxbaa u dhexeeya ilaahay ugu talagalay inay sahayaan, laakiin nagu ma aragno. ilaah baa ugu talagalay ilaahun bana og. qoraxdu hadday naga fogaato intaynu jirno ay naga fogaato dunidu waxay noqonaysaa madow iyo dhaxan. waxyaabo badan oo ilaahay inaynu ugu mahad noqno aynu ugu shukri noqno aynu mar walba qalbigeena ku hayno ayaa jira oo dadku saanay ogin. marka wax walba ilaahay keeno waa inaynu ugu mahad noqnaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. dhib iyo dheefti timaadaba alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ugu mahad noqno. yacni waxba anigu imika waxyaabaha dunida ku arko والله أنت بس سبرايز كم نقطة because ما حدا وح سو السعودية إلى هيدي تصي إنه كل عمر قادتها وح سو السعودية وإلى هينا تصي إنه كل عمر قادم عمرية أين يشرون واي قوميات كسبة مدي صون ولاتا مقاصد الدنيا إلى هيك كحياة نسوق مود كلا إلى هيك أبورا مقاصد مدة كل ولادان مدة دا سهدنا إلى هيك كحياة دونك. marka waxa weeye nimcada ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin in ilaahna weeye. adduunyadan ku kala nool lahayna qolo dhul barafle ku nooshahay qolo dhul biyo roobku baan ka qaadin bay ku nooshahay qolo roobku ku yaryahay bay ku nooshahay. waxaa ku jirta meeshaana maxaa dhahdaye micnaa ku jira so dadka dhaxanta jooga markay qoraxda yimaadaan uma adkeysan karaan way dirlacaan wadda kacdad. dadka kuleylaha jooga markay dhaxanta yimaadaanna vitamin D-ga ka dhamaado tabcaan bay garan 10 xanuun baa ku dhaca. kuwa roobka ku noolna 20 kun xanuun oo cidinaan ogeyn bay qabaan because roobka 24/7 ku da'aya iyo qabowgan iyo dhiiqadan iyo waxaan oo dhan
oo ilaahay ugu talagalay ma ku noolaan karaan adduunyada way ku noolaan karaan laakiin way ku yaraadkaanaysaa so qoomiyad kastaba ilaahay meel uu ku abuuray meesha uu ku abuurayna ilaahay baa og macnaha ku jirta so inaan dhibsanin meelaha ilaahay nagu abuuray marka inkastoo dadka Afrika jooga aynan ilaahay ugu mahadnaqanin meeshaynu joogno iyo meesha ilaahay nagu abuurayna ilaahay ugu mahadnaqayn meel baastan xun caynkan iyo caynkan yaa el oranayo laakiin in ilaahay ugu mahadnaqno weeyaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta makaan ka soo gudbo inta yar warwareega yar maxaa adduunyada ku cimri qaadashada ay leedahay in ku soo bururugno ashladayda hore waxaan kaga hadlayay intii ugu dambeysay cadaaladda iyo cadaalad darrada ee wadankeeni haysata maanta laakiin sheekada cadaaladda iyo waxaas waxay kusoo wareegtay alsha garaantu kusoo wareegtay Yurubta waliba especially magaalada maxaa wadanka UK waxaa jirta magaalo kamida UK ba group cadaana يعني فسقني iyo balaayadan in laha meel kasta way ka jirta ayaa group cadaana waxay haayeen I think imisanin 6 nin miya toro iyo 3 dumara mise waa adigu waa group ayaa caruur yar laba hablood yar baan fil wada dhageysan kartaan waan soo duubay be ina yar baa la farxumeeyay caruur yar oo teenager way haayeen way ciqaabeen waa la soo helay waa la daba galay dadkii waa la soo qabtay maxaa lagu xukumay sentence baa lagu xukumay sanado badan baa lagu xukumay waa la soo qabtay ciidi kama soo daba qaylinin waare hebel lama odhanin niman waxa sheekada u badan niman bay ahay nimanka u badnaa inta la xidhay dumarku 3 bay ahaayeen waa ina hebel oo qabiil hebel ku soo jeeda lama odhanin cid ka soo daba qaylisay male because qabiil ma yaqaanin dadkan qabiil beri hore qarniyo hore bay dab ku rideen oo gubeen maxaa loo xidhayna caruurta yar ee dhibaateeyeen farxumeeyeen ciqaabeen inaga kuwii dilay kun waa farxumeeyeen oo ciqaabeen be ayaa loo xidhay muddada loo xidhay way badan tahay laakiin kuwan dilay ee gowrace gubay ayaa la sii daayay cadaaladda markaa doonaysa inaad ku dhaqantaan waa ina ummadaha kale ku dayataan haddii tii ilaahay idiin soo diray aaba kuba dhaqmayninba waayo kitaabkan qur-aanka waxa ku jira wax kasta ilaahay noogu talagalay inaynu ku noolaano kitaabkan qur-aanka waa guiding waa hage wayna hagaya waxa weeye guidingka ina hagaya sida fiican ina hagaya waa kitaabkan qur-aanka maha iska akhriya un maaha kitaabka in la iska akhriyo maaha macnaha ku jira in la fahmo weeyaan kitaabkii baynan ku dhaqmaynin dhaqankeennii baa qawaalan oo qariban caqligii ilahayna siyaasi kale loogu shaqaysanayaa but at least hadday intaaba aydan ku dhaqmaynin warbal ummadahan kale ee miyirka qaba balse u dhaqmayaan iyo waxyaabaha wanaagsan ay ku dhaqmayaan bal kaga dayda iminka labadii nin ee isdhalayaan daraato idin soo dhigay meesha waxaa la lahaa hoos baa loo sii daynaya oo sheekadeedu waa la xidha in la sii daayana allahu yaclam oo u badanta in la sii daayo labadii oday laba nin isdhalaysi ina teer u galeen marka soomaaliya intaydan cadaalad la-aan maxaana ku nooshihiin weligiin wallaahi badan meel sisota weligiin saasaa u waalaanaysaan saasaa u gubanaysaan sidaasaa ugu gubanaysaan ee maxaa dhahdaye isu reebreebaysaan maalin walba isu laynaysaan ayaa qiyaamo ku dhacaya okay waxaan idiin soo daynayaa sug codkana waan idiin furayaa weliza codkii were subjected to horrific abuse between 2012 and 2019. Ian Owens, Elaine Lannery, Scott Forbes, Leslie Williams. Okay, let's see. Okay. waayahay waan idiin soo daynayaa bismillah
It was at this Glasgow flat where three young children, all under the age of 13, were subjected to horrific abuse between 2012 and 2019. Ian Owens, Elaine Lannery, Scott Forbes, Leslie Williams, Paul Brannan, Barry Watson, and John Clark have all now been given lifelong sentences after being found guilty in 2023. But it was the testimony of the children who we are not identifying which led to the gang's arrests and charges. In 2020, the two eldest children confided in an adult who they'd met through a community building where they would go to get food. They told them the youngest child was frequently locked in a cupboard with a box full of spiders, as well as an oven and a freezer. The youngest child later said she'd been forced to eat dog food. The trial also later heard that the girl was raped by members of the gang. ما مغلسة عروتي صار يقع وصدق عرورة ميد واحد لقول كرتون عارك بيحده ميد بس يبقى لو عقاب عروتة ميد نوال كوسة شالوك بلاو. The adult alerted the police, who later established the older boy and girl were also savagely beaten and sexually assaulted on multiple occasions and forced to ويل يينان والد لي انت قراعي بهدنا فوله. consume alcohol and drugs. The judge sentencing the gang told them they may never be released from prison and praised the bravery of the children. In contrast to your awful abuse, the trial also heard evidence demonstrating the best of human qualities. Children showed extraordinary fortitude, strength, and stamina, undergoing months and years of interviews as investigators struggled to discover and comprehend the full extent of what you had done to them. These are the faces of one of Scotland's halkaasaan ku joojiyey ma maqlaysa waxaa la yidhi lamaba soo daynayaba rest of life-kooda maba la soo daynayaba intaas qof ka arkayseen meesha waa la xiray waa la xukumay caruurta facekooda lama soo saarin because lama doonayo hadhata futurekooda in caruurta la dhibo rest of life-kooda xirnaanaya waa noloshooda inta ka harsan bay ku jireen jeel innagana maxaan sameynaa iyagoo dileen oo gubeen oo nolosha ku ciqaabeen oo nolosha ku cadaabeen baynu iska sii daynaa marka waa in cadaaladda waan la eegaa okay maxaan dhahdaa alxamdulilah alxamdulilah raaliga ahaada dhaxan iyo rucbaad soconaya okay mid kale aan idiin soo daynayaa ummadda ilaahay adduunka ku abuuray waxa weeye qof basiib uu abuuray gabadh cadaana iyo nina sidii way eeshiyaan baa isqabay ninkan laakiin dhinaciisa fadhiya arki doontaan waa dhakhtar maaha isagu ma qabo gabadha ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey mataanaha inay way isu eg yihiin laakiin abuurta ilaahay waa cajaayib alla ilaahayo alxamdulilah nimcadaada fara badana alla nimcadaada fara badana yaa allah alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay ummadiisa siduu ugu maaragtay يعني I don't know how sidaan maxaan dhahdaa I don't know how can I maxaan dhahdaa I don't know waxa weeye nimcada cajiibka baan la yaabay madaxaygu calashan alxamdulilah rabbilcaalamiin gabadha waa cadaan ninkuna waa eshiya caruur baa ilaahay siiyey wiil iyo gabadh mataana ah mataanihiibaa midba kalar baa ilaahay ku abuuray inantiina ninkiiba ilaahay kalarkii ninka ayuu ilaahay siiyey oo waa inan brown inankiina gabadhii cadayd buu raacay laakiin faysahaan way isu eegyihiin laakiin skinkii waa kala duwan yahay indhihii kalarkiisuna waa kala duwan yahay abuurta ilaahay cajaayib bal waa tani daawada subxaan allah waa kuwaas I hope inaad si fiican u aragteen eeg سؤالك مي عدك وين لا ما ركته نيكاس واد اختار ما هيسوي كده له
look at that. So what did you think? I think it was just surprised that you don't you see it but you don't Yeah. you don't see it between the song. iyagu sii wadwadiina maxaad u malanaysa waxaasay le iyagu mogtahay amarada ilaahay inta badan ma aaminsana dadkani marka ilaahay subxaana watacaala ubadka ilaahay siiyey dadkan qofba way ka jirtaa norway way ka dhacday halkan way ka dhacday xitaa waxay ka dhacday halkan UK baan malaynay inay ahayd 2005 meelaha reer madow oo Nigeria ka yimi ayaa inan yar ugu dhalatay halkan inan yar bay dhaleen blondie hair blondie blue eyes jirkeedu cadaan yahay markaasuu ninkii wuxuu yidhi naaniga waa meelo kala soo marmartay buu yidhi deetee waxaa la raadiyay DNA goodii baa la raadiyay markaasay adigaa dhalay waryaha waalane ما فهمت نكا أموره إلهي وعجيب الحمد لله رب العالمين تاسواتي الله بعض بس هذا الصومالي كوساف سما صودا نيكن I don't know سيدان ميوكو عادي هاي قبلنا dangerous بيكو جرته سان واركو maskiina I don't know Soomaalida caruurtooda way iska iibinayaan qofka ay siinayaan miyirkiisa iyo caafimaadkiisa toona ma eegayaan aniga ninkan waan ka baqay bal ila eega ninkan inuu caadi yahay in kale bal ila eega badado وكا I have no idea ninkan inuu caadi yahay iyo in kale laakiin inanta waan uga baqay allaha uu sahlo inanta body language kad ka arkaysaa inaanu normal I don't know waxaan idhaahdo ma garanayo yaa siduu wuxuu wado siduu wuxuu eegayo dee already waa gabadhiisii oo dee waa kaa maaragtay dhinaciisa fadhida laakiin eegmada sorry xijaabkii maanta iga waashay eegmada noocaasaya baqdin baa ku jirta bal waaye bal kominkana bal ku sayra dar waxaad ninkaa u maleynaysaan waa in yaro iska faniya reerka allaha isu sakhiro allaha maxaan dhahday reer degan oo lagu waaro maxaan allaha ka dhigo de bal waayahay anigu waxaan marayaa 410 baan marayaa subscribes bal kunkay gaarsiiya asxaabay kunkan mar haday maaragtay bal sii faafiya oo bal kunkan ina gaarsiiya waa mahadsantihiin khayr iyo barakaan idin rajeynayaa dee maalin wanaagsan maca salaama dee like-ana ku badiya like inoo saara iyo subscribe-ka khayr iyo maxaan dhahdaa nabad baa idin rajeynayaa peace maca salaama